السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارته كسر هذا كيستا تي في برنامج كله برنامج كنا نوحنكو إيجي دونا إن شاء الله تعالى وربحين تكسر بحذي دولة فدرال كالصوماليا أو سيدا مانتا لشيغي ربطا إن أي جوجيسو آلة تيك تاكا حفيرن دونا إن دولة فدرال أي أود أولا هاي إن أي كجوجيسو دالكا أو إذل استعمالك آلة تيك تاكا هدي ay dhihi lahaayeen waxaan joojinaynaa Telegram iyo hadii ay dhihi lahaayeen waxaan joojinaynaa one exhibit waxay noqon lahayd wax la soo dhaweeyo oo lagu farxo laakiin TikTok isaga oo fadeexooyinkiisa dhibaatadiisa iyo wixiisa iska wata haddana uu ka duwan yahay kuwaas hadii aan fiirino one exhibit oo kale waa app qamaar oo dhalinyartii ay ku noqdeen addicted dhibaato badan u geystay so appkaas wuxuu la mid yahay appka MGM oo lagu sameeyo sports betting ama qamaarka xagga sportiga lagu sameeyo ayuu la mid yahay wuxuuna ka shaqeeyaa Las Vegas Nevada ee dalka Mareykanka waxa ay kula tartamayaan one exhibit MGM app kooda oo waxa iska leh European East European ayaa iska leh waxaana asaasay nin qoliyahaas Soviet Union ka mid ahaan jiray so hadii dheeraayeen one exhibit dhibaato ayuu ku hayay dhalinyarta dadka shacabka oo isticmaala jeebkoodii dhaqaale ahaantoodii iyagoo marka horeba qaatiyaan ka taagnaa isticmaalka muqaadaraadka sida qaadka oo kale ba haddana waxaa loogu daray one exhibit waxaan dhihi lahayn soo dhaweyn lahayn aad iyo aad baan ugu farxi lahayn maasha allah so Telegram iyo one exhibit haddii laga joojin lahaa dalka waan soo dhaweyn lahayn laakiin inay TikTok yidhaahdaan waan joojinaynaa geli mayno adiga ma dhahayn anaga TikTok waa taageersanahay laakiin marka xagga sharciga laga fiiriyo horta dowladda federaalka dalka Soomaaliya gacanta ma ku wada haysaa number 1 number 2 awood ma u leedahay inay ka joojiso aaladda TikTok aan fiirina marka TikTok marka la yiraahdo waxa u baahan tahay inaad isticmaasho TikTok internetka waxa bixiyo agency ama company sida Hormuud, Golis, Telesom, Nationlink, Somtel, Mtel, Somlink, whatever you want to call them. There's about 12 agency oo kale oo ka register garaysan Soomaaliya oo telecommunication agencies haddaan fiirino sharciga waagii dhaweyto 2017kii telecommunicationka ee la baasiyay xilligii dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorayay in all these companies ay soo noqdaan compliant oo sharciga u hoggaansamaan dowladii hore kolley waxay ila tahay inay kaga dhacday dowladana ay kula soo qabsatay ayada oo wali si buuxda dowladda Soomaaliya aysan gacanta ugu dhigin kulana wareegin telecommunicationkii dalka ka jiray aan fiirino Hormuud Telecom oo kale Unified Communication Infrastructure and Services Provider waa CISP waxa la yiraahdo buu uga license garaysan statuskiisa waa licensed laakiin compliance statuskiisa in uu yahay hay'ad sharciga u hoggaansantay waxa waaye under annual compliance review intaan ka ahayn hal agency kulligood waxa ay ku jiraan compliance review wali dib eegid ayaa lagu hayaa so company marka horeba dowladda federaalka dhaqdhaqaaqiisii iyo sidoo wax u kala wado iyo howlihiisa aysan gacanta ku haynin I don't know sida ay uga dhigayso compliant oo inuu dhihi karto TikTok aaladaas hala joojiyo ama appkaas ha laga saaro mar dhaweyto hadda Golis oo kale Golis Telecom Soomaaliya waa CISP iyagana saa idin sheegay laakiin licensed hawa ahaadaan iyaga naftooda waa under annual compliance review lama soo dhamaystirinba compliance-goodii review ayuu ku jiraa wali haddaa maqasho review waa iska guddi baa loo saaray sheekooyinkii waagii wax ay qabtaan oo ka soo hagaagana weligeed ma jirin so Telesom oo kale sidaas oo kale ay loola mid tahay Nationlink waa iyada conditional license bay leedahay shuruud baa ku xiran license-keeda compliance-geedana waaba NA not applicable maba quseeyaba
so Somtel Somalia oo kale CISP waaye licensed waaye laakiin ayada nafteeda under annual compliance review ayay ku jirtaa. So Mtel iyo Somlink same thing. dowladda marka federaalka ah waxa u taalo howl adag oo ku saabsan in ay kambaniyadaan marka hore ay keento in ay noqdaan compliant oo sharciga u hoggaansamaan kadib ayay waxa ay rabto ay u sheegi kartaa oo dhihi kartaa abka hala joojiyo kan hala joojiyo. xilligii dhaweyto haddii taariikhda aan dib u yara celino Donald Trump markii uu isku dayayay in uu joojiyo aaladda TikTok ee dalka Mareykanka uu ka joojiyo Trump wuxuu awood u lahaa oo gacanta ku hayay ama Mareykanka ay iska leeyihiin labada operating system oo loo isticmaalo Android-ka iyo iOS-ka. Android waxaa isticmaala Samsung-yada iyo kambaniyada kale oo dhan waa Google baa iska leh. iOS-kana waxaa isticmaala iPhone-ada iyo iPad-yada waxaana iska leh Apple. So saa ogtihiin Apple iyo Google labadaba Mareykan ayaa iska leh. All they have to do waxa waaye in ay app-ka ka joojiyaan in la soo download garaysto. waagaas TikTok booming ayuu noqday dad fara badan ayaa soo download garaystay because haddii la joojiyo wuxuu ka joojin lahaa app-ka booskiisu ka joojin lahaa in la soo download garaysto ayuu diidi lahaa. So Google iyo Apple ayaa waxa lagu qasbi lahaa in ay joojiyaan soo download garaysashada iyo inuu available ku ahaado App Store-ka. So dowladda Soomaaliya ma awood bay u leedahay in ay Apple iyo Google ay ku tiraahdo joojiya TikTok lamana soo download garaysan karo qof kastana waa inaad ka uninstall garaysaan ma dhihi karaan sababtoo ah Mareykan uma taliyaan Trump laakiin wuu u talinayay dalka Mareykanka aabkan iyo kambaniyadana wuu xukumi karay. So awood badan uma laha in ay TikTok Soomaaliya ay hawada ka saarto. haddii ay tiraahdo shirkadda Hormuud oo kale iyo Golis iyo Somtel saddexdaas ugu weyn ma jeclahay haddii ay ku tiraahdo daatada ladinka isticmaalayo TikTok iyo halaga bixiyo I don't know sida ay shaqo badan ay qaadanaysaa in ay intay dib ugu noqdaan app-ka isticmaali kartid ay si gooniya u controlaan oo maaragtay special ah. tan kale waxaad isticmaali kartaa virtual private network ama VPN waxa la yiraahdo adiga oo location-kaaga bedelanayo waa lacag yar sanadkii dhan. VPN-ka haddaa isticmaalaysid there's no way Hormuud iyo Golis iyo ay ku hor istaagayaan because waxaa iska dhigaysaa in aad TikTok-gaaga ka soo gelaysid dalka Mareykanka oo kale. sidoo kale waxaan idiin sameeyay hadda ka hor VPN free ah oo la yiraahdo Windscribe video ayaan ka sameeyay haddaa channelka dib ugu noqotid waa arki kartaa VPN isticmaal internetkaaga adiga oo dalka la jooga. annaga oo kale hadda inta ka tagno markii aan tagno Kenya oo kale ama let's say China oo tagtaba China markaa tagto China network aad isticmaalaysid ama wifi-ga aad ku xiran tahay waa controlled aada loo controla dadka localka waxay u diidan yihiin in ay exposed ku noqdaan waxyaabahan kale oo westernka ah. So waxaa la isticmaalaa VPN-ka waa very raqiis. ma idin oranaya hadda don't jump to the conclusion and say okay waa la xiri rabaa TikTok I'm going to have to jump to balki VPN because it's not possible in dowladda Soomaaliya ay TikTok hadda ay aaladaas joojiso when aysan awoodinba in ay hay-adihii internetka bixinayay oo kambaniyadii waaweyn ahaa ay ka dhigto compliant kuwa ah oo sharciga u hoggaansama. So there's no way I don't think inay samayn karaan but they will try inshallah and see download garayso haddaa rabto laakiin I don't think inay dowladda Soomaaliya awood u leedahay inay xirto TikTok. Don't panic hadday xaaladda xumaato jiq noqotana we have all laws are meant to be broken. So shuruucda waa la jebin karaa. VPN ayaa isticmaali kartaa location-ka baa bedelanaysaa and then you can use TikTok-gaagi. That's the cheat code-ka aan idin hayo waan idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.